بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله والسلام عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta oo ku taariikhaysan 12 July 2023 waxa aan jeclaystay inaan halkan warbixin yar oo kooban ka soo gudbiyo oo ku saabsan dadka dhibirka qaba wadankeena Hargeysa degan waxa dhacday maalmaha kamid ah inaan la kulmay dad dhalinyaro wayl isugu jira oo hawshaasi ku tacalluqa ama dadka dhibirka qaba wax qabad u sameeya marka aan raacay maalinta waxaan la kulmay runtii wax aad ii farxad geliya wax qabadkoodii baan nimanka aad uga helay waxaana dhacday maalinta aan la kulmay inaan raacay oo ii geeyeen guri kamida guryaha magaalada Hargeysa oo markaa uu ku xidhan yahay nin xanuunkan dhibirka qaba ninkaasi runtii nin aad u jiran buu ahaa nin maskaxda yani wax weyn ka qaba ayuu ahaa reer runtii dan yar ah oo saboolana markaa ka dhashay waxa ka muuqatay daranyar runtii aad iyo aad u weyn ba ka muuqatay ninkaasi markii aan u galnay waxaanu aragnay in uu lugta ay silsilad kaga xidhan tahay nimankii arrinka markaa qaabilsanaa ee ila socday aan la socday ninkii silsiladii way ka soo fureen waana soo qaadeen gaarigii bay ku soo qaadeen waxaanay geeyeen meel ay u sii diyaariyeen oo markaas dhakhtarka Hargeysa ku yaala ninkani markaa ninkaa wuxuu ahaa dhiban maankiisu maqan yahay miyirkiisu aanu joogin isla hadlaya isku buuqsan daranyaysan darxumaysan ayuu ahaa markii dhakhtarkii la soo geliyay ee uu ninkii doctorka ahaa la kulmay markiiba irbad baa lagu muday dejisa markii irbadii lagu muday ee ninkii degay waxa loo gudbiyay qolo kale loo gudbiyay oo isla halka dhakhtarka jooga ninkii waa la kaxeeyay waa loo soo maydhay cidiyaha laga soo guray timaha laga soo xiiray dhar nadiif ah baa loo soo geliyay 20 mir kadib waxa nagu soo noqday ninkii oo aan ninkiiba ahayn oo degay aamusay si fiican ku soo eegayo oo deedegan ayaa markii ka soo baxay 20 mir kadib runtii actionka ama ficilka ay nimanka dhalinyarada ay sameeyeen aad baan horta anigu ugu farxay aad baan ugu duceeyay tasababtayna weeye maanta inaan halkan soo fariistay media oo aan ka hadlo oo aan sheego wanaaga nimankaasi ay sameeyeen khayrka ay sameeyeen tabarruca ay sameeyeen aad baan ugu farxay tasababtayna weeye maanta inaan halkan media soo fariisto oo aan u soo bandhigo bulshooyinka reer Somaliland